qofka tuuga in dadka lagu ceebeeyo masawirkiisa idaacadaha laga soo daayay leeyahay qofkan waa tuug amaanadii loo dhiibo ku takrifalay waxaa si weyn u socdaa olole ballaaran oo shacabka Soomaaliyeed ay guri ugu dhisayaan madaxweynihii sagaalada jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ololahan ay soo abaabuleen shacabka Soomaaliyeed oo ka xumaaday in madaxweynahoodii uu guri kara degan yahay isla markaasna uusan wax guri ah ku lahayn Soomaaliya ayaa dhexda u xirtay sidii ay guri ugu dhisi lahaayeen hogaamiyaha shacabka ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. in shacabka Soomaaliyeed ay guri u dhisaan madaxweynahoodii oo ilaaliyay hantidii shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed oo aan guriga ku dhisan waxay diraysaa fariin weyn hogaamiyayaasha qaaradda Afrika oo lagu tiriyay inay yihiin madaxda ugu musuqmaasuqa badan dunida ayaa fariintaani waxay diraysaa mid taas ka duwan oo ah inuu jiro hogaamiye Afrikaan ah oo aan la tusin musuqmaasuqa waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. halka shacabka Soomaaliyeed ay taariikh u noqon doonto inay yihiin shacabkii ugu horreeyay Afrikaan ah oo abaal mariya madaxweynahoodii oo ilaaliyay amaanadii shacabkiisa. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu xasuustaa xilligiisii inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee burburkii kadib musuqmaasuq u xirxira madax sare oo isugu jira wasiiro, agaasimayaal iyo shaqaale dawladeed oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale heerka musuqmaasuq naciibka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa musharrixii ugu horreeyay howlka doorashada gala isagoon $1 oo laaluusha bixin waana isla musharrixii ugu horreeyay ee aan bixin dhaqaale laaluusha ee taga wareegga saddexaad ee doorashada iyo helidda in ka badan 100 cod. mas'uuliyiinta gacanta ku haya akoonnada lacagta abaalgudka lagu aruurinayo oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in si weyn ay shacabka Soomaaliyeed uga qayb qaadanayaan ololahan oo loogu magac daray mahadsanid madaxweyne. barnaamijkan isxilqaanka ee shacabka Soomaaliyeed sida mutadawacnimada ah guriga ugu dhisayaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka xumaaday madaxda iyo mucaaradkii shalay ama kooxda Damul Jadiid ee aan taageerada shacabka haysan oo ku caan baxay musuqmaasuq xargaha goostay iyo dhicidda hantida shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed. kooxdan maafiyada ah ee Damul Jadiid ayaa u quurila madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shacabka Soomaaliyeed ay guri u dhisaan maadaama uu ilaaliyay hantidoodii iyo amaanadii ummadda. shacabka Soomaaliyeed waxaa la yaab ku noqotay in kooxda Damul Jadiid ay diido guri shacabku ay u dhisayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo u sababeynaya abaara jira halka ay u sacabinayaan ama taageersan yihiin caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku baxayso adduun lacageed oo dhan $3 milyan oo dollar. balse shacabka Soomaaliyeed oo ka jawaabaya baaqa mucaaradka Farmaajo ayaa yiri gacanna abaarta dadkeena gacanna abaalka Farmaajo oo ka dhigan gurigana waan dhisaynaa dadkeena abaaraysana waan u gurmanaynaa.